waxa uu ku yaalaa bartamaha qaaradda Yurub waxaanu xal la wadaagaa wadannada Faransiiska, Denmark, Luxembourg, Belgium, Holland, Switzerland, Austria iyo Poland. Wadankan Jarmalka waxa ku nool qiyaastii ilaa 50,000 oo Soomaaliya oo soo galay horaantii 80-maadkii ilaa 90-maadkii. hase yeeshee Soomaalida intooda badani kuma ay nagaanin wadankani Jarmalka, waxay u sii gudbayeen wadannada kale ee qaaradda Yurub. wadankani Jarmalka waxa uu ku adkaa bixinta dhalashooyinka iyo sharciyada marka loo eego wadannada sida ay u bixiyaan wadannada kale oo soo dhaweeya qaxoontiga magangeliya doonka. Soomaalida degan waxa ay badankoodu soo galeen sanadkii 2015, 2016, 2017 waxaanu Jarmalku qaatay qaxoonti aad u tiro badan oo ay Soomaalida ka mid tahay. guud ahaan xagga nolosha Soomaalida ee Jarmalka degan ayaa waxa ay iskugu jiraan dhalinyaro shaqaysta, kuwa waxbarta, qoysas ku tiirsan dhaqaalaha dawladdu bixiso, iyo sidoo kale dhalinyaro nolosha ka dhacay kuwaas oo ku jira beerta oo isticmaala balwado kala duwan. taasina waxa ay keentay in dhalinyaradu ay iskuulada ka tagaan isla markaana ay xabsiye galaan, iyo sidoo kale in ay dukaanada wax ka xadaan isla markaana xabsi dheer ay ku galaan, mustaqbalkoodu halkaasi ku lumo. dhalinyaradaasi ayaa da'doodu lagu qiyaasaa 15 ilaa 25. Muna Cali oo kamid ah madaxda sare ee jaaliyadda haweenka ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa waxay ka warantay kuna dheeraatay sidii dhalinyaradani loogu wacyigelin lahaa falalka xunxun ee keeni kara in ay xabsiye galaan. waxbarta oo iska dhaaf qamrigan ay cabaysiin hooyada guriga ku soo gaday waa lagu soo tahriibiyay. haddana waxaad sameynaysaa in aad qamri beeraha la fariisatid oo xashiish caba faa'iideysa jaaniskaaga. waxa lagu ogol yahay inaad wax baratid, inaad xirfad baratid, jaamacadaad aadi kartaa. dad badan oo waxaan aqaanaa Soomaali oo jaamacada aadeen, qaar oo maxaan ku sheegaa Osbuldun barteen. marka walaalayaal waxaan leeyahay dhul inaad soo tirtirtiin wax qurux badan maaha. ha aadin maxaan ku sheegaa security lacag 12 saacadood waardiyaana tahay. security muxuu yahay? waa waardiyaanaad tihiin. waa maxay ahayd wax baro maxaa ku kalfiina waardiyaana aad meel fadhiisidoo wax ilaalisid. waxaas maxaan ku sheegaa dadkeena dhalinyarada ma sameyn jirin. iskoolle ka soo bixin, dugsi sare soo dhameeyeen, jaamacaday aadeen. anaga Soomaali waa isnaqaanaa xataa cunto karin markuu cunuga baranayo waxaan dhigi jiray cunto karin buu baranayaa. idinkana hadda waxa waaye dhulkii baad tirtiraysiin oo waxaan loo joogin aad sameynaysiin. waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay Naasir Cabdillaahi oo kamid ah dhalinyarada xirfadaha ka barata dalkan Jarmalka, iyo Cali Maxamed Siciid Cali Kalluun, Maxamed Cabdirasaaq, Rooda Axmed Geesey, Siciid Axmed Faarax oo dhammaantood ku dheeraaday sidii dhalinyaradani loogu wacyigelin lahaa falalka xunxun ee keeni kara khataraha halista ah ay wajahayaan dhalinyarada. bulshada Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool inay macnaha ogaadaan tahriibta la yiraahdo inuu dhib badan yahay. tahriibtaas oo dilay ku ruuy dadku sida qaarka Soomaaliya ka soo baxayaan, waxay soo marayaan Suudaan, Liibiya soo marayaan, waxay soo marayaan ishiga Itaaliya soo galahayaan. Itaaliya markii soo galahayaan waxa kharash ay ku baxaya marka ugu yar tahay 9,000 ilaa 10,000 ka sii badan dadka qaarkood qayba naftooda ku waaya. waxa laga yaabaa islaantu inay lahayd macnaha uu ka yimid wiilkaas uu ka yimid ama gabadhaas ay ka timid hal guri inay lahayn gurigiina loo iibiyay oo nafta dhimanaysa la badbaadiyay. ka bacdi wuxuu soo galayaa dalkan Jarmalka. markuu dalka Jarmalka ama qaaradda Yurub soo galo, qaaradda Yurub iska wada warhaysa kulli olaftam waxay kala kulmaan qisooyinka ay kala kulmaan waa qisooyin aad u fara badan, u dhib badan, aad iyo aad u dhib badan weey. kow marka ugu horeysa luqadda loo baahan yahay dalkan luqadiisa aad ku hadlaynin ma shaqeyn kartid. waa marka koobaad. marka labaad hadii la ku ruuyo wixii bayriif ah soo dhigatay laftigada waa inaad la timaadid. saddexaad waa inaad hadii la ku ruuyo sharciga qaadatid oo sharciga hadaadan haysan sida kadalika ayaduna hadii la ku ruuyo yahay shaqo lagu siin maayo. marka sharciga uu iska heli dadka qaar waa lagu dhibaa sharciga oo waa lagu dhibaa. waxa loogu dhibana waxyaalaha looga baahan yahay shuruudaha ah ee macnaha tarmiin haday noqoto tarmiinka hadaad saacad goysid ama daqiiqad aad dib dhacdid tarmiinkaaga saas ku baabay. hadda maal dhaweeyay nin baa hadii la ku ruuyo tarmiin lahaa wuxuu lahaa hadii la ku ruuyo saddexda galabnimo lahaa. saddexda galabnimo markuu lahaa hadii la ku ruuyo waxa la yiri ishiga hadii la ku ruuyo yahay 15 ka la yiri 15 buu garan waayay. wuxuu tagay hadii la ku ruuyo yahay saacadii lagu talagalay saacad aan ahayn buu tagay oo meeshii uu tagay. marka sanad ba hadana gadaal loogu dhigay sharcigu uu qaadan lahaa sanad iyo interviewgiisi gadaal baa loo dhigay. waa dhibaatada kamid tahay. waa koow. marka
qofka ii sheegay dadku way kala duwan yihiin dadka marka dadka ii sheegay hadii la ku roon yahay beeraha galay ama ii sheegay boosaskii looga baahnaa dawladda aan imaanin ee dadkii ay ka soo jeedeen boosaskii u soo iibiyey dhibaatooyin aad u fara badan bay dadkii xagga ka dambeeyay iyo ayaguba ay la kulmayaan waayo qofkii Yurub jooga qofku waxa laga sugayaa Yurub waxa la moodahay lacag fara badan inay taalo qofkii inuu macnaha markuu soo galo uu lacag iyo dhaqaale gacanta la galayo inuu bangiyo loo jibinayo ma aha sida ma aha job centerku wuxuu lacagta kugu siinayaa shuruudaha dalka uu leeyahay markaad buuxisid tarmiin haday noqoto oo tarmiinka waxa la yiraahdaa ballanta waqtiga ballanta waa ku xunahay Soomaalidu ku xuntahay iyo meelaha lagaga baahan yahay ee iskuulada ay inaad tagtid afka xooga saartid inaad la yeelatid saaxiibo ama ii sheegay meelaha dhaqdhaqaaqa shaqooyinka laftigeeda inta markaad shuruudaha buuxisid 400 cayd aweysiin 4 marka qayb hadal siiba goysayba oo tarmiinkii job centerkii goysay ii sheegay dila kuru iskuulkii goysay ma aan waqtiyadii la ballamay dawladda ay rabtay aan tagaynin waxa la ballamahayna waa ajaanib dad ajaanib oo kala weeyaan hadii la kuru socialista oo ii sheegay xafiisyo fadhiyo weey qofku marka aabaha ma aha hooyadana ma aha lacagta bilaash kugu siin maayo 400 laftigeeda bilaash kugu siin maayo dabcan anu waan soo galay dalka hadii la ku roon yahay waxa soo galay 2014 waan soo galay rafaad fara badan iyo dhibaato aad u fara badan baan kala kulmay ii sheegay hadii la kugu dad soo maray waxaan soo maray Liibiya hadii la ku roon soo maray yaban baa soo maray Suudaan iyo ii sheegay yaban waxaan u kala socon doonto waxay noo waday 4 habeen iyo 4 maalmood bay doona waday waxaan nimid Suudaan baan ka soo baxnay Suudaan waxaan joognay 2 maalmood waan ka soo baxnay waxaan nimid ii sheegay hadii la ku roon yahay meesha la yiraahdo Liibiya waxaan joognay bil Liibiya maxaan ugu imid oo indhahayga saaray gabadh fool oo ii sheegay hadii la ku jirtay sanad kaamil halka waa dhibaatooyinka ila naxdinta badnayd ee ila macnaha muruga badnayd baa gabadha hadii la ku roon yahay waa xaamilo wax ii sheegay ay u dhalaysan lama yaqaan cid ay u dhalaysan lama yaqaan gabadha hadii la ku roon yahay nin ay dhijireen dhabaray oo aanan maqal had macnaha geeridiisa marra lagu yiri wuuba dhintayba baa meesha haystay waxaan ku yidhi hadii la ku aniga beeska saar lahayd gabadhan saar foolanaysa gabadhan meesha saar wiiga diido hadii la ku wuxuu yiraahdo booskaaga gal hadii la ku roon yahay gabdhihii markii ii sheegay la fayliyay ee la soo saarahay waa marka soo baxaynay waxa weeye ii sheegay Itaaliya gabdhihii markii la fayliyay baan ku yiri koow adigu noqo roortii hore gabadhu soo sheegay koow bay noqotay kaaga daranta ruux la qarin kara ma waa qof fool oo fuul karin ii sheegay hadii la ku roon yahay gaariga la saaraya wiil kale la ballan waxaan ku yiri hadii la ku roon lugta qaba aan lugta ma qabtay gaariga baan ugu hormarinay waa dhibaatooyinka ay Soomaaliya soo mareysay hadii la ku roon yahay sidii baan gabadhu ku soo saaray oo Itaaliya ku timid ilaahay amarkiisa qayb baa laga yimid oo ku jiray ii sheegay jeelka oo ii sheegay wax u reeyay aanan warkaynin qofka Soomaaliga asbad iyo basar wuxuu ku leeyahay dalka hooye ee uu asagu ka soo jeedo hibe iyo biti ku leeyahay wuxuu ogaan qofku markuu qurba tago ama uu tago hadii la ku roon meesha la yiraahdo qurba uu yimaado markaas ogaanaya dalkiisu wuxuu laan jiray marka waxaan soo maray hadii la ku roon Itaaliya Jarmalka soo galay Jarmalka marka soo galayna qaabka ii sheegay loo dhaqdhaqaaqo hadii la ku roon qaabka loo dhaqdhaqaaqo markaas aan bilaabay hadii la ku dadkii iga soo horeeyay baan la tala galay sidaas ballanta habeenkii ii taal lama seexan jirin oo wallahi ama seexan jirin saawaayo warqada ballanta ma aqaano wax ku qoran waa lagu dili kaliya laga bixi waa lagu xidhi waxay tahay ma aqaano waayo walwal baa igu jira naftayda ilaa dal kale aan imidee marka waxa loo baahan qofka inuu xooga saaro dal u dhalan markuu yimaado inuu xooga saaro waxa weeye asaga noloshiisii dalku ka yimid rafaadku soo maray waxa soo dhan inuu dareemo marka dhalintii way kala baxeen qayb alxamdulillah rabbil caalamiin way shaqeeyaan hadda uu sheegay dilku way shaqeeyaan way ka fayeen reerahooda qaybuna waxay ku jiraan beeraha ay ku jiraan wardadka beeraha ku jira waxaan leeyahay ee ii sheegay dilku faamiliga iyo ehelka uu ka doonayo nolol ee ii sheegay maalkii uu haystayna wadada kugu soo mariyay waxa sudaamaan leeyahay wax sidan si u bedelan leeyahay mid kale waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee dalka hadda ku dambeeya walaalayaal dalkan annaga aragnay tahriibna ku nimid dalkanu ii sheegay iyo dalkeena ka shaqo badan oo shaqadiisu kaaga dhowdahay saawaa dalkeena imtixaan warqad lagu waxayn maayo oo ii sheegay dila ku rooyay lagu oran ma 3 sano ausbuldan bilow oo lagu oran maayo dila ku intuction la imow oo biya aan isla imow lagu oran maayo waxaas oo dhan waxa weey waa shuruudo lagaaga baahay barta shaqada haddaadan la tagina waad iska noqon gurigaaga waad ku noqonaysaa kabacdi beerta aad ku noqonaysaa walaalayaal marka dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah waxaan leeyahay war dalkiina hooyo ka shaqaysta wax u barta hadda anigu dalka hadda tago kow waxaan bilaabi hadii la ku yaanyadaan bilaabi oo wallahi yaanyadaan bilaabi waxaan bilaabi guriga hortiisa inaan xaaqo
sababta oo tahay dal shisheeye waa la xaqayaa maxaa ii diiday dila kuri aws buldan baa loo galaya xaqitaanka dhulka la tirtirayo wallahi 3 sano aws buldan had galaysaa 3 sano oo waxbarasho xaqitaanka ayaad u galaysaa oo billahi waa dadka yaqaan Yurub marka waxaan leeyahay war dalkiina ku adkaada iswada jeclaada walaalayaal hadii la kuri waxaan walaala noqonaa China iyo American iyo Jarmal iyo Yurub qaaradaha adduunka kala bedelan baan walaala soo dhaweysanaa haddaan soo dhaweysanina shaqaan kar mayno wadankan dib iyo dheef uu leeyahay dibkiisa iyo dheeftiisaba macnaha wax barnaamij ama hal barnaamij lagu soo koobi karo maaha laakiin qodobada ugu muhiimsan haddii aan ka taabano nolosha Jarmalka taala dhinaca xun iyo dhinaca wanaagsanba aan ku horeyno dhinaca xun marka ganaaxaas markuu qofkii ku bato waxay noqonaysaa qofkii dhalinyarada inta badan ma shaqeeyaan dawladda wax siiso qofkii marka waxay noqonaysaa wixii ay dawladdu siinayso in dhexda loo sii istaago qofkii dhalinyartaha macnaha waa lacagtiisii iyo wixiisii macnaha kuma filnaanayaan waxay noqonaysaa qofkii inuu fikro stress ku dhaco inuu qofkii ma garanaysaa uu balwado bilaabo xashiish ama khamri ama wax lamida inta badan dhalinyarteena oo Jarmalka joogta Soomaaliyeed dibka haysta oo ugu badan waa balwada iyo stresska marka qofkii inuu isla hadal iyo wali gaaro stress gaaro marmarka qaar qofkii uu dagaalamo ama uu dadka ma garanaysaa isku dayo inuu dadka au waxyeeleeyo qofkii markuu dadka waxyeeleeyana wadankan dawlad buu leeyahay dal buu macnaha wadankan waa dad dawlad leh sida Soomaaliya kala ma qofka waa la qabanay isbitaal balgeey waa iska duraa ka dhalinyarada inta badan dibka haysta waxa weeyaan macnaha kama fiirsadaan markay wax sameynayaan iyo balwadii iyo ma garanaysaa wadankan dhibaato badan baa yaala marka systemkan ay Jarmalka iyo systemka wadanka isku mid ma systemkan inay la qabsadaan aad bay ugu adag tahay dhalinyarada badan marka dhalinyarada walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay ma garanaysaa ay wax bartaan oo ay dadaalaan oo fortraagada ay iska hubiyaan waayo qofkii markuu biilkii loo soo diriyay uu waayo de noloshii waxay noqonaysaa inuu maartay si u dhacsan lahaa uu gaaro meeshana waa meel sharci ka jiro hadaa khalad gashid maalinta koowaad lagu xirmay waa lagu sii deeniyaa maalinta labaad waa lagu sii deeniyaa maalinta saddexaadna xabsi waa lagu geenayaa dilana ama waa lagu durayaa marka si aadan maartay u galin arrintaas aadan u galin waa inaad iska hubisaa kuwa dariiqii kugu xagilaha halkaa horta marka ugu horeyso waxaan salaamayaa RNTV waxaan jeclahay dhibaatooyinka lala kulmo marka la yimaado wadankan qaasatan marka Yurub la yimaado dhibaatooyinka ugu horeeya ee horta haweenka la kulmaan waxa kamid ah inta markay yimaadaan ayagoon afka aqoonin ayagoon sharuudaha u yaala aan aqoonin taaniyan hooyadu markay inta timaado waxa looga baahan yahay waxyaabo badan in ay fuliso dhibkii ay soo martay tahriibkii ay soo martay way iska iloowaan taaniyan waxa dhacda in ay iska ilaawaan dhibaatooyinkaas ka fikirin noloshooda nolosha ciyaalkooda nolosha reerkooda sababtoo ah adigoon afka aqoonin sharuudaha iyo sharciga u yaalo maxay ahayd anagoon aan isku dhaqan iyo aan ahayn badana waxa inta dhacda in hooyooyinka ilmaha laga qaato waxaan horta dhihi lahaa hooyooyinka ciyaalka wadankan ku haysto oo aan ku waanin lahaa 99% in ay hooyooyinka ciyaalkooda daryeelaan u dhabar adeegaan nolosha ciyaalkooda iyo noloshoodana ay ka fikiraan sababta annaga waxaan nahay Soomaali hadaan nahay hooyooyinkeenu waa hooyooyinka adduunka ugu fiican ugu dhabarka adag ilmahoodana daryeela si sahlan ma jecli in ciyaalkana looga qaato hadaan nahay Soomaali waxaan ka waanin lahaa oon u sheegi lahaa hooyooyinka in ciyaalkooda iyo naftoodaba ay daryeelaan kana fikiraan si sahlanna aan looga qaadan ayagoon iska dhaadhicin Yurubaa timid aanan dalban in la kaalmeeyo si aan gudahooda loo soo galin hooyo walba way awoodaa sababtoo ah subaxii ilmahooda waxay geeyaan kiito waxbarashay awoodaa shaqay awoodaa sababtoo ilmaha waa loo hayaa kaalmay haystaan waxaan dhihi lahaa hadhihina waxaan u baahannahay in nala kaalmeeyo kaalmo uma baahnid hooyo Soomaaliyeed tahay hooyo Soomaaliyeedna hooyooyinka kale way ka adag tahay waxaan dhihi lahaa iska dayicina ciyaalkiina anigu hooyanahay 5 sano ku noolahay wadankan ولنا عيال كي إيمانين وأكتهين جرمالك ويكو أدق يهاي شرعي وكو أدق يهاي تدكينستا وحي أباهن تاي صبر بدن وحان دي لها كل دبر أدقا هو يوين كعيال كودا لي يمد ودن كان sababtoo ah wadankan sharuudihiisa waa adag yahay yaan ciyaalkan ilaga qaadan yaan ciyaalkiina la dayicino banaanka aadan dhigina waxaan kale oo waanin lahaa gabdhaheena Soomaaliyeed ilaahay sharafta u yeelay qiimaha u yeelay
ayagoo Liibiya soo maray Suudaan soo maray dhib ku yimid wadankan markay yimaadaan diintooda iska ilaawo dharka iska xoora hooyooyinka aan nimankii ilmaha ka dhalay inkira dacweeya iyagoo la qaba yiraaho nin ima qaba saaxiibtinimo aan ku dhalay ilmihiin horta iska xaaraantameynina ma fahanteen waxaan nahay dad baahida iyo dhibkaba u dulqaato magaceenu waa Soomaali sharafaan leenahay diinaan leenahay magacaan leenahay waxaan aniga aaminsanahay in aan u qiimo badanahay caalamka magacayga marka aan fiiriyo Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa gabdhaha ka tagay dhaqankoodii iska iloobay inay u soo taariibeen wadan islaameed qaatay dhaqanka aysan lahayn waxaan dhihi lahaa iska iloowa dharkiinana ha xoorina diintiinana ha ka tagina maadaama aad gabdhaha caalamka ugu quruxda badan ugu sharafta badan la tihiin taasaan idinka waanin lahaa hooyooyinka soo tahriibana waxaan dhihi lahaa ilaawin dhibka aad soo martay saxaraha aad soo martay badda aad soo martay ha iloowin mar walbaba ku taagnaaw dhaqankaagana ha ka dhaqaaqinaan dhihi lahaa aniga intaas waa iga waano gabdhaha Soomaaliyeed aan waaninayo kaloon ku dari lahaa haddii aan nahay annaga Soomaali waxaan jeclaan lahaa inaan garbaha isqabsano walaalowno meel walba oon joogno isku garabsano dad isku aan naqano dad mar walba isku heeliya isgarab qabta dhibaatada iska kaalmeeyo farxadda isla qaata dhibka yimaadana isla qaybsada inaan naqanaan jeclaan lahaa meel walba aan joogno waxaan dhihi lahaa oo kale sida dadka Soomaaliya jooga waxaan ku waanin lahaa dawladdeena dadkeena Soomaaliyeed in ay ogaadaan dadkoodu inay dibadaha yaalaan inay darxuma hayso maalin walba waa kuwan is haysta waxa aan loo baahnayn iskaga tanasula ka fikira dadkiina banaanka yaalo waxa dawladda kamid waa dad ka wada naqday qurbaha haddana aan ogeyn wixii ay gadaal uga soo tageen warheeda meel walba waxa daasan waa ubad Soomaaliyeed meel walba waxa dhibaatada ugu badan waa nin Soomaaliyeed sababtoo naaguhu way u dul qaadan karaan dhibka laakiin maalin walba waxaad arkaysaa wiil Soomaaliyeed ee dhibaataysan beerta ku jira waalan aan fiyoobeyn meel walba waxaad arkaysaa wiil Soomaaliyeed oo lagu caynaayo waxa nolosha ka dhacay waxa daroogada cabayo waxa aan fiyoobeyn ee meelaha yaalo walaalayaalow waxaan idin dhihi lahaa maadaama aan Soomaali nahay dad dhaqan lahaan ahayn aan isku tanaasulno wadankan aan ku noolnahay waxaan arkaysaa noloshooda ayaga garbaha isqabsaday annagana waa ka wadan fiicanna waxaan aaminsanahay waa ka dad fiicanna waan ka iimaan fiicanno dad muslimiin ah iskaga tanaasula oo dhibka dadkiina haysta gadaal u fiiriyo waxaan u baahanahay in aan u sheego dadkayga Soomaaliyeed shalay annagoo ahayn dad caalanka dadka ugu qaalisan in aan siin jirnay sakadeena maantana sawirada adduunka ugu foolxun in ay meel walba noo yaalaan 92 dadka gaajada u dhimanay mayd hooyadiis nuugay in aan ku magacaawanahay maalin walbana aan maqlo waxa wax loo aruurinayaa Soomaaliya waxa baahi ka dhacday Soomaaliya annagoo ahayn dad taajiriina dadka caalanka hadda ugu qanisanna aan sii jirnay sakadeena nala yaqaano magac lahayd annagoo intaan ka awood yar ka aqoon yar yaan ka hanti badnayn dadka caalanka hadda ugu taajirsan maantana dadka ugu faqrisan annagoo wadankeenu taajiri ayaan dadka ugu faqrisan ka midnahay waa yalla mudakar RTN TV Jarmalka